aad iyo aad yaan kaga mahad celinaynaa sida wanaagsan oo quruxda badan aad noo soo dhaweyseen aan aaminsanahay ilaa saakay aroortii inaad noo taagneedeen cadceed aad noo taagneedeen waxaan iloobi karna ma aha waa maalin taariikhi ah oo aan nimid halkan sida wanaagsan aad noo soo dhaweyseen runtii waxaa la siiyey cashar aanan hore u ogeyn inay ahayd magaaladii shabaabka ugu horreysay oo la dagaashay oo ka bixisay oo ah meeshii xuduudka ahayd xuduudka ay ka bilaabatay darbigii laga dhisay ay u gudbi waayeen qolooyinkan khawaariijta ay u gudbi waayeen gobollada intiisa kale ilaa puntland ilaa waqooyi u gudbi waayeen taasna runtii waxay ka turjumaysaa geesinimadiinna soomaalinimadiinna iyo diin jaceylkiina ka turjumaysaa welina ilaa hadda ay ku soo noqon waayeen ilaa hadda oo aad u tihiin aasaaska nabadda galmudug aa u tihiin aad iyo aad yaan kugu mahad celinaynaa meelahan soo marnay kullina waxaan kala kulannay soo dhowayntan iyo mid la mida laakiin meeshaan sidaan arko waxaa ii muuqda energy xamaasad badan baa ii muuqata oo aad iyo aad u badan walaalayaal hawl adag baa noo taalla hawl adag ayaa noo taalla oo igu horayso inaan ka shaqeyno midnimada galmudug iyo inay noqoto meeshaan midnimada iyo isu keenista iyo dib u heshiisiinta ummadda soomaaliyeed oo idil madaxweyne ilaahay qaybka ku siiyo xilkaadayda ilaahay kugula ceebeeyo ummadaada ilaahay ku ogolaysiiyo muslim iyo gaalo allah ku ogolaysiiyo sidii laguu doortay oo aan la soconno oo soomaaliya intay joogto lagaaga wada hambalyeeyey oo lagaaga jeclaay kii ku soo baxa allah kaa dhigo meel kastoo soomaaliya joogto inta madaxweynaha soomaaliya tahay aad u dhaxayso meel walbaba waxaan rajaynaynaa inaad u tegi doonto inaad baahidooda buuxin doonto intaasaan rajaynaynaa madaxweyne soo dhowaaw ilaahay khayr ha ku siiyo cadowgaagana allaha qabto wax khayr qaba allaha ku siiyo ilaahay kuu kalmay madaxweyne waxaan kaa rabaa madaxweyne qur-aanka kariimka iyo calankii soomaaliyana waa kaas